بسم الله الرحمن الرحيم. أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادا برشاد مادة داودا ما أنت إن شاء الله وتعالى حضو الله سبحانه وتعالى وقدره وحان كهل دونا كيني لو استعمال ديكركا لو يقانو أتنول أيضا داوين لو داوي ديكركا أي بدينهين لكن ما أنت وحان ديرد صار دونا كيني لو يقان أتنولكا هذه جنال كورسبت هاي وحين صارت سبسكرايب سي 10 دقيقة وسوغار إن شاء الله أو كوجوكتا إنسان كسرنا هاي كينيجا أثنالكا وحلو استعماله وكلية قيبها كلا دوغن ديكركا أما لو مجعبه هاي بلاد بريشر كا أما بي بريشر كمركو ساعد نقطة يلقو داوية بي بريشر كنورمال كيسي عادية هو بقول لبعتن وديك سرعة sidoo kale 80 oo dhiig hoosa marka hadii tiradan labadan qayb oo dhiig sare ee dhiig hoos lagu kala magacaabo oo diastoliga marka uu ka sara mar heerkooda lagu tirigalay oo hypertension uu noqdo ayaa waxa la yiraahdaa dhiig kar markaas waxa loo isticmaalaa keenin loo yaqaan atnolka qayb kale si dhiig markaas loo yareeyo it's used to waxa loo isticmaalaa to prevent in markaas ay ka hortagaan qaybta loo yaqaano angina ama cudurka lagu magacaabo chest pain oo ah xabad xanuunka ama qofka markaas inay qaybta hore xanuunto keenigan wuxuu yeelan karaa miligram kala duwan 100 miligram oo yeelan karaa 520 oo yeelan karaa sidoo kale wuxuu yeelan karaa 50 miligram marka inta nooc buu arki kartaa ee qaybo kale ee markaas kala duwan ay arki kartaa who may not be able to take ethanol yaan qaadan karin ethanolka yaa la siin karin waa qof kala siin karo qof noocyada insan ku soonahay ethanolka qof walba lama siin karo ethanolka qof kasta ma qaadan karo saadarteed it's not suitable for everyone qof walba lama siin karo in macluugal lama aha to make sure in loo markaasi badbaadada noloshaada waa in markaasi aad weydiiso dhakhtarkaada inaad qaadan karto kaniiniga ama aad bilaaban karto adigoo dhakhtar uu ku amrin kaniinigan ma isticmaali karto ma qaadan kartid ayadana waa mid muhiim u ah la tashiga dhakhtarka aad sameynaysid dooska laga qaadan karo maxay noqonaysaa marka waa maxay doosajka ama sidoo kale qiyaasaha laga qaadan karo daawadani doosadka laga qaadan karo daawadani way kala duwanaan kartaa waxayna ku xiran tahay inta miligram markaas daawadani ku imaan karto it depends on waxay ku xiran tahay oo kaliya inta loo baahan yahay miligram ahaan iyo sidoo kale xaaladda qofka ayay ku xirnaan kartaa saadarteed marka ethanolkani qaybta koowaad waxa la dhihi karaa inay tahay in qofka la siiyo blood pressure-kiisa high blood pressure markuu noqdo kale 25 miligram ama 50 miligram inuu qaato hal mar ama marka uu jiro angina waxa la siin karaa 100 miligram inuu qofka la siiyo ama 50 miligram ayada la mid waaye sidoo kale markuu jiro wadna xanuun degdeg ah oo marka joogtahan qofka waxa la siin karaa nooca 100 miligram ka ama 50 miligram ku qaadan karaa ethanolka aad Wednesday hal mar ayaan la siinayaa ama hal maalin ayuu qaadanayaa kaniinigaasi hadii uu gudbo 10 xiga ama qaybta xigta qaybta xigta waxaan ku baran doonaa ethanolka iyo sidoo kale waxa xiriir ka dhaxeeya hooyada uurka leh ethanolka ma la siin karaa hooyo uur leh it is important waa muhiim in la daaweeyo cadaadiska dhiigga markuu sareeyahay hooyada dhiig kar ay qabto oo kale inta lagu guda jiro sidoo kale uurka haddii hooyada uur leedahay waa in la dagaalamaa dhiigga la dejiyaa ayada aad muhiim u ah this will help you tan waxay ka caawinaysaa marka in markaas adiga iyo babygaadaba aad ku sugnaataan xaalad caafimaad qabta saadarteed ethanolka maadaama markaas hooyada uurka la qaadan karto waa mid markaas ugu badan in la dejiyo waxaan la siin karaa daawo kale loo yaqaano libitanol waa la siin kartaa iyadana waa similar medicine waa daawo isku mid ah qaab isku midna u shaqeysaa sida ethanol kala ethanolka marka qaar wuxuu yeelan karaa waxyeelo babyga wuxuu keeni karaa waxyeelo ama koritaanka babyga ayuu wuxuu keeni karaa dhibaato kaasoo ku jira uurka jirta hooyada saadarteed maybe afraid extra scans waa in la mariyaa hooyada scan iyo baaritaan badan in hooyada la jeegarayaa muhiim ah taasoo markaas lagu ogaan karo koritaanka canuga uu sameynayo uurka jirka ama uurjiifka taas ayaa markaas mid wanaagsan ah in la socdo ayadana ina fahanteen waan filayaa kaniiniga ka hadlayo oo dhiikarka ah ee loo yaqaan ethanolka qaybo kalena way jiraan oo kaniiniga markaas dhiikarka loo isticmaalo halkaas ayaan kusoo koobaya cashirka waxaan soo gudbinaynaa Ustaad Abduhaba hadduu cashir kusoo gaarno u shargaray asxaabtaada kale soo ugu faa'iideystaan insha Allah ta'ala subscribe to comment like tan ha ka iloobin insha Allah ku xirnaaw channelka aqoon kororsi online academy